madaxweyne Muuse Bixi isaga u taliya dadkiisa iyo Somaliland xiliga ay noqoto ka dawlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah in la ixtiraamo integrity-ga dalalka jaarka aan wada dhahay waa in la ixtiraamo in midnimada Soomaaliya saacada la joogo Soomaaliya mid uma looge ma san ku sheegay soo badan ma yahayn oo Afrika ban ka shaqeynay baan ku ka hor shirkad Djibouti wax si yaalay weeyaan in Somaliland Somaliland ay Ethiopia Somaliland aqoonsato oo MOU la saxeexo Afrika ka hor shirkad Djibouti ayaan ka shaqeynay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Keyd Maxamuud ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawaale oo cadeeyay in Djibouti iyo madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geele aysan raalli ka ahayn talaabadii uu qaaday Muuse Biixi Cabdi si weyn ay uga caroodeen wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Ciise Keyd Maxamuud oo ku sugan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wax dhibaato ah aysan u arkin hadalka wasiirka maaliyadda ee Djibouti wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay in Djibouti aysan u geysan wax dhibaato ah balse ay ka shaqeynayaan ay ahayd aayaha ummadda reer Somaliland markii ay galayeen heshiiskii Ethiopia sida hadalka uu dhigay waxa la weydiiyay sababta ay uga baxeen heshiiskii ay isku afgarteen iyaga iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna ku dooday in halkaas uusan wax heshiis ka dhicin taasina ay sababtay in Somaliland ay iska dayso oo ay arrinkaas ka baxdo sidoo kale waxa uu sheegay in heshiiska ay la galeen Ethiopia uusan ahayn dhabar jabin ku ahayn dalka Djibouti iyo arrimaha ay wadaagaan ee u dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti balse waxa uu ahaa ayuu yiri mid aan ka soo wada shaqeynay Ethiopia intaasi waxa uu ku daray inaysan si fudud aysan ku tagin dalka Ethiopia iyo waliba magaalada Addis Ababa 4 bilood ayaa ka shaqeynayna ayuu yiri kulanka Djibouti markii uu dhacayay anigu waxaan joogay magaalada Addis Ababa taasina waxa ay keentay in madaxweynaha uu Ethiopia tago si uu heshiiskaasi u saxeexo maadaama uu soo dhamaaday wada hadalkii anaga iyo Ethiopia wasiirka ayaa meesha ka saaray in heshiiskaasi uu ahaa falcelin ku saabsan heshiiskii ay wada gaareen balse uu ahaa heshiis ay muddo 4 bilood ah ka shaqeynayeen wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo garwadeen ka ahayd heshiiskaasi ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Keyd ayaa sheegay in Djibouti iyo Somaliland ay yihiin dal walaalo ah isla markaana oo u dhaxeeyo heshiis iyo walaalnimo soo jireen ma san ku sheegay soo badan ma yahayn oo Afrika ban ka shaqeynay baan ku ka hor shirkad Djibouti wax si yaalay weeyaan in Somaliland Somaliland ay Ethiopia Somaliland aqoonsato oo MOU la saxeexo Afrika ka hor shirkad Djibouti ayaan ka shaqeynay waliba anigu aan gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ahaan aan ka shaqeynay shirkii Djibouti ka dhacayna wax la taaban karo runtii ma ahayn wax lagu heshiiyay ma jirin technical committees uma markii dambe la sameeyay wadaadkiisa waxa saxeexay wasiirka arrimaha dibadda gudaha ee Somaliland ayaa saxeexay marka wax ku oolaya halkaas kama soo bixin kadibna shaqada joogtada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland loo dhaariyay ee xafiiska u joogo ee inuu ka nasan danta Somaliland iyo hawlaha Somaliland ayaa uu markiiba markaa ugu tagay laakiin reaction ma aha